السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا ونكسن كل سنة ولا ليال مقالكي أنو كجاه ليني كورسكي أنو بلوني أها ويب ديفلوبمنت هروح إحنا سوق هذا نيجي له رضع عهيد أنو كجاه لي مركز HTML كيسيس كي حباس ويب ديفلوبمنت كلاجاه لي هذا ما طبعا قادم دونا عشرة كواد مركز HTML أين كودين كقول دونا مركز واحد سوستونا كود كيني براوزر كيني سوستونا فايل نوع نقدر نسميه دونا مركز سي ويب سايت أنو سمينا مركز سي إنتي ورسي marka faylkii iyo waxaan wixii oo dhan mix la qori doonaa halkan waxaan ku sii diyaarsaday folderka dadku inta badan iska garanaysa loo sameeyo folder baan kuma right click baan idhi then new dadna waxaan sameeyay folder markaasaan folder ku qoray marka wax iska qortay website beginners ma iska qortay halkaas desktop-ka ayuu ii yaalaa haddaba waxyaabo badan baa casharka hore kusoo sharaxnay tusaale waa inaad haysatid marka hore browser waa inaad haysatid markaasi text editor-kii aanu isticmaalayna aan dooranayno waxa markaasi VS Code marka VS Code-kii haddii aan markaa garanayn halkan baad ku qortaa marka V iyo S baad ku qortaa VS Code marka VS Studio Code baa la yiraahdaa waa kaas marka isaga ayaan soo kicin doonaa marka imika isaga soo kicino wuxuu inoogu soo bixi doonaa insha Allah sidii Faaruq sidoo kale midaan wax lagu qorin oo kale yani tusaale inuu welcome inuu soo dhawin doonaa marka waxaan oranaynaa markaasi maadaama inuu hor project ku sameeynin waxaan oranayaa halkaas ma ku qoray open folder markuu yiraahdo waa kan markaasi waxaan soo dooranaynaa folderkii aan ka qornay desktop-ka inoo yaalay aan dooranaynaa marka waxaan oranaa select folder marka folderkii baa lagu soo furi doonaa halkan folderkii waa halkan lagu soo furay oo kan web halkan lagu qoran waayay ayna marka qaybta newda iska xidhno halkan marka folderkii inoo yaalaa haddaba waxaan u baahanahay folderkiinan inaynu ku dhex furano inaan ku file ka dhex samaysano sala file HTML mid CSS mid PHP mid JavaScript wixii oo dhan halkan lagu soo qori lagu sii samayn doonaa oo marka waxa ku geli doona folderka desktop-ka ku yaal sala folderka ka timaadid oo imika waa kan folderkii aan yaro weynaysano folderkii sala folderkii waa kan uu maran yahay aan furo uu maran yahay folderkii waan joogaa uu maran yahay haddaba imika waxaan ku qori doonaa markaasi faylkii koowaad HTML inta dul imaado aan qayb plus taabanaya marka waxaan ku qorayaa waan taabanayaa dadna waxaan ku qoray tusaale index waxay tahay index waa magacii faylka uu qaadanay tusaale marka faylkaas waa index faylkaas waa home page faylkaas waxa weeye waa about page waxa weeyaan website faylkiisa magaciisa weeyaan dat haddii xagga dambe wixii ka maraan waxa la dhahaa extension waa sumadii lagu garanay faylkaas ma CSS ba ma HTML ba oo waxyaabihii lagu kala saarayay tusaale haddii aan HTML qorno marka waxa soo noqonaya faylkaas HTML haddii aan qorno tusaale CSS buu noqonaya haddii aan qorno markaasi tusaale PHP faylkaas PHP buu noqonaya haddii aan qorno markaasi JS JavaScript buu noqonaya marka saas inta badan ku kala duwan yihiin inaad sidaas ku garateen ayaa laga yaabaa marka waxaan ku qori doonaa HTML baan ka dhigi doonaa faylkaas HTML waan arki doonaa halkan calaamad yar isku soo qormaysa marna HTML noqonaysa marna CSS xagga ka imanayso gadaal baan ka arki doonaa oo waa waxyaabo dheeraad ah ku qornay imika dadna internet ka oranaya imika waxa la sameeyay file HTML waa kan waa file HTML haddaba waxaan u baahanahay si aan HTML-ka gudihiisa ugu qorno soo click baan siinayna oo inoo furmay marka meeshii code lagu qoray waa intan weeyaan waa intan madow imika halkan lagu qoray marka halkan weeyaan hagan abinis ka tan maano yani tusaale wuxuu yahay wax meelo badan aad ka maamuli kartaa full screen baad ka dhigi kartaa waxyaabo badan baad ka bedeli kartaa layout-ka kala tusaale waa kan waxyaabo badan baad ka bedeli kartaa marka xaggaas waxaad ka bedeli marka aad doonaysid inaad ka bedeshid xaggan ka bedeli doontaa yani nooc uu noqonayo laakiin anigu noocan baan iska jeclay favorite-kaya marka waxaan ku qori doonaa si aan u soo koobo aan ka wada qoraalkayga inta badan waxa jira wax la yiraahdo tags waxa jira wax la yiraahdo waxyaabo badan buu leeyahay marka koodka kooban yahay wayna sharaxi doonaaye horta waxa laga baahan yahay qodob ogsoon marka koobaad waxaan la yiraahdo tags buu waxaan HTML ka kooban yahay sida wax la yiraahdo tags ba jira tagskaas marka waxa weeyaan waa taggaas marka wuxuu qaadanaya tag name buu qaataa magac buu leeyahay oo taggu kala duwan yihiin haddaba tag kastoo la furaa wuxuu leeyahay meel uu ka furmo iyo meel uu ka xidhmo tusaale meel uu ka furmo iyo meel uu ka xidhmo
salimka hadaynu tag html furno waa ka noqonaya in html ka xakan laga soo xiro soo maartid halkan waa kan waa furan yahay oo start tag kana markaas waa close ama waa open tag iyo close tag kana waa ama start tag iyo end tag mid ku dhamaanayo iyo mid ka soo xiro ka soo bilaabmayo hadii aan soo dhaweeyo halkan waxaad aragtaan html ku qoran tahay oo bracket ku dhex jirta greater than iyo less than u dhaxaysa halkan waxaad aragtaan sidii oo kale laakiin calaamad ba dheerad ku forward slash calaamada forward slash waa laba slash ba jira mid waa ka mid kalena waxa la backward slash waa ka backward slash hadaba forward ba isticmaalta calaamada forward ka ay isticmaal doontaa oo taas marka calaamada markasta lagu kordhiyo wax noqonaya in kaas close yahay tusaale imika kan wax weeyaan waa open tag waa mid furan ama waxa oo dhanna waa start midkii wax ka bilaabmay kana marka xirana waa close tag ama waxa odhanaynaa waa end tag saas ayaa lagu kartaa marka html aad aragtid tagga koobaad waa marka waxaad kartaa in open tag meel wax ka bilaabmayaan kana markaas uu noqonay end tag oo waa kii ay wax ku dhamaanayeen sal wixii marka faylka inta wax lagu qorayaa inta wax u dhaxay noqonaya marka inta tahay html markaan qorayno inta soo dhaxaynaya qoraalkii halkan waxyaabo badan baa soo geli doona tag badan oo fara badan baa si guda geli doona laakiin intan baa marka ya maamulaysa in html kan ka koobnaado ay qasabna tahay in marka ku qornaado html waa in meel ka soo furnaado meelna ka xidhnaado waxa jira taagag ay sidoo loo isticmaalo waan xidhmin kuwa dib aynu ka arki doonaa laakiin taagag game aynu furayno dhan halka hadii hadaba aynu qornay html5 hadii aynu html ka fara badan tahay html5 hadan qorno internet accessory oo dhan weeyna soo baxaysa html5 hadan qorno bal tusaale halka waxaan looga bilaabo wax la yiraahdo declaration ku waxa weeyaan wayna qortid ay calaamada markaas calaamada cajiib kadib doc type waa document type kiisu waa html tagga koobaad waa maxay waa declaration baa la yiraahdaa hadii aan soo dhaweeyo marka labaad waxaan noqonayaa halkan marka hore waxaad qoraysaa calaamada less than baa qoraysaa dadna waxaad qoraysaa calaamadan allah musta'an calaamada cajiib dadna waxaad qoraysaa doc type html marka dadna html halkaas ka furanaya luqadda html ka isticmaalaysa waa english tusaale intan waad ka saari kartaa intan wax badan ma sii bixinayso oo tusaale english noqonaysa hadii waa saawad ka oran kartaa intan imika waan iska saasan iska deysanayna halka waxa jira wax la yiraahdo head waa meel hadhow aan wax ku dhex qori doono halka wax ku sii xiga marka wax ku sii jira meta chart side waxa ku jira meta name view ah oo content-ga size yahay waxa jira title kuna muxuu noqonayaa title-ku marka website-ka joogtada line-ka sare xaga ma ka soo baxay document magaciisa inta badan lagu qoraa way xagan marka head-ka ba ka soo xiran Soomaali head-kii halkan ka furan halkan ka soo xiray marka waxa waajiba mid kasta kaas marka ka furan halkaas ka soo xiran yahay inka taasu ma tag meel ka furan ma taasuna tag meel ka furan ma laakiin title-ku meel buu ka soo furan yahay meel buu ku xiran yahay halka hadaba barigu ma maxay barigu waxa weeyaan marka website booqatid wax alla wax inta gudaha ka soo muuqanayo oo dhan weeyaan iyo halkan soo gala hadii marka ciwaan noqoto hadii sawiraan noqoto hadii video noqoto hadii wax alla wax kasta oo content ku jira ama gudaha ku jira website wax la dhex kaliya bariga wax la dhex kaliya bariga la kaliya bariga waxaan oolin kama soo muuqdaan website marka waa ubuucday salaxakan waa headka xagana wax weeyaan waa bariga marka html kan ugu dambeyn waa qolka lagu soo xiro hadii kale waxba dhacay imka tusaale hadii aanu kaas oo kale calaamada ka baqan tahay cilad baa ku imanaysa hadhow waayo dee bariga ma xidhna